بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. يعني إلهي سبحانه وتعالى ونوفد إن تجنو إندونيسيا يا ماليزيا. إندونيسيا waxaan kaga qayb galay shir maxaa la yiraahdaa shir madaxeed loogu talagalay dowladaha kulaala badda Hindiya oo ilaa 12 dal ah iyo 9 dal oo iyaguna ay yihiin wax la yiraahdo ama dowladaha dialogue partners ama dad wadaagad talo wadaag ku leh oo 9 dowladooda. markii hore waxaa la soo casuumay madaxweynaha mudane Abdullaahi Maxamed Farmaajo inuu shirka kaga qayb galo, laakiin maadaama ayna u suurtoobin ayuu aniga ii egmaday inuu ku matilo halkaas. walilaahi alxamd, shirkaasaan ka qayb galnay, si fiicanna waa u dhacday. go-aamo badan oo runtii wanaagsanna meesha way ka soo baxeen. wuxuuna shirki madaxeedkii ugu horreeyey ee muddadii 20 sannadood ay jirtay ururkan u jiray la qabto, oo imika sanadkii 2016 iyo sanadkan 2017 ay dowladda Indonesia ahayd guddoonka ay haysay. muddada ay joogtayna ay isku dayday in wax badan laga qabto guud ahaan inuu dalalkan ay ku bahoobay ama kulaalaya badda Hindiya ay wax kala. marka waxyaalaha ugu muhiimsan ee qabsoomay waxaa ka mid ah waa in la soo saaray wax la yiraahdo action plan oo 6 qodob ah, iyo Jakarta Concord ama mid ay ku heshiis lagu qaatay Jakarta, heshiiska Jakarta loo bixiyay oo isaguna ku saabsan sidii xagjirnimada iyo argagixisada loola dagaalami lahaa ama loo yareyn lahaa ee dhammaan dalalkaas oo dhan loo yareyn lahaa. marka runtii wuxuu ahaa shir aad iyo aad u wanaagsan oo si fiican loo soo abaabulay. annaka Soomaali ahaana aanu anaguna ka qayb qaadanay oo ahayd markii labaad ee Soomaaliya ka qayb qaadato. mudane kasoo saaray sidoo badweynta Hindiya marka lasoo hadal qaado dhanka burcadbadeed oo kale ayaa ah arrimo dadka qalbigooda isla markii kusoo dhacayso. ma ku jirtay shirka waxyaabaha diiradda lagu saaray طبعا way ku jirtaa 6 qodob inay ku jirto way ku jiraan. waxaa ka mid ah amniga iyo ammaanka badda Hindiya. waxaa ka mid ah maxaa la yiraahdaa sidii loo maareyn lahaa kalluumaysiga. waxaa ka mid ah kobcinta awoodda dhaqaale ee dumarka. waxaa ka mid ah sidii la isu weydaarsan lahaa waxaan teknolojiyada la yiraahdo, iyo waxaa kale iyaduna ka mid ahayd wixii dhaqan ah sidii loo isu weydaarsan lahaa oo looga wada shaqeyn lahaa. run ahaantii markaa waxaad moodaysay in ay ku jirto arrintan burcadbadeed iyo la dagaalankeedu waxay soo galaysaa arrinta amniga. xagga kalena waa tan maxaa la yiraahdaa Jakarta Accordkana ay ku jirto in lala dagaalamo xagjirnimada. markaa noocin ma xagjirnimadii bay soo galaysaa, nooca kalena argagixisadii bay soo galaysaa, laakiin ma suurtoobiso inay maxaa la yiraahdaa sidaa lagu daayo laakiin soo galaysaa. Soomaaliya oo kale oo xeebtii iyo dhulkeedii ay xanan la oo awoodeedu la ogyahay intaas waxay la eg tahay. shirkaas oo kale in badweynta Hindiya arrimaheeda laga hadlo maxaa kusoo kordhin karna haddaan Soomaalina? waxaad ku soo kordhinaysaa runtii dee waad ogtahay wax badan oo khibrad ah nooc doonaba ahaada ayaa laga faa'iidaystay. haba yaraata awooddu ha yaraato, laakiin haddana khibrad baa meesha jirta. midda labaadna waxay kusoo kordhinaysaa iyadan lafteeda ilaalinta xeebaha iyo badda Hindiya. waxyaalaha ugu daran imika badda Hindiya ka mid ah waa wixii contraband la oran jiray, ama ha noqoto dad la contrabandayo, maandooriyaasha, hubka, waxyaalahaasoo dhan ayaa wada ah maxaa la yiraahdaa waxyaalaha ugu daran ee hadda badda Hindiya ka shaqeynaya, iyo dabcan maxaa la yiraahdaa burcadbadeed. marka innaka lafteenu khibrad badan baynu leenahay oonu intii ka dhaxalay muddadii imika 10 sano ugu dambeysay dhibaatooyinka ay ku hayso kalluumaysiga sharci darradu ku hayo
in markaa wax laga qabto ayay muhiim u tahay innaka lafteena inay u tahay marka yes waa kusoo kordhinaynaa ama waxaan qabaa wax badan baan kusoo kordhinaynaa haddii shirkaas oo looga hadlayay arrimaha badweynta Hindiya aan intaa usoo tagan sidoo kale waddanka Malaysia ayaad tagtay bal wixii kala soo kulantay Malaysia alxamdulilah rabbil caalamiin si fiican baa horta lanoogu soo dhaweeyey waxaanan saagnay ra-iisul wasaare ku-xigeenka wasiirka gaashaandhigga wasiirka waxbarashada wasiirka communicationka ama isgaarsiinta taliyaha ciidamada oo isagu la socday wasiirka gaashaandhigga waxaan kale iyagana wada kulanay oon saragnay Red Crescent Society ama bisha cas ee Malaysia intuba waxay diyaar u yihiin sidii Soomaaliya wax loogu qaban lahaa weliba gaar ahaan si Soomaaliya abaartan imika ku habsatay wax looga qaban lahaa oo ay macaawino wixii ay kari karayaan marka waxaa noo suurto gashay laba arrimood mid weeyaan horta in la bilaabo olole loogu dhaqaale ururina loogu sameynayo Soomaaliya xagga abaaraha la furay xisaab la furay lacag ilaa $100,000 oo ay bixiyeen 3 hay'adood oo dowladda ah NGO ahaan way ka mid tahay Putra One Malaysia oo runtii iyadoo ah ka mid ah xisbiga xaakimka ama xisbiga talada haya inay qayb ka mid ah oo xagga dhalinyarada u qaabilsan iyo hay'ad kale oo iyadana la yiraahdo Media Prima iyo hay'ad kale oo saddexdaa hay'adood ay 100,000 isku bixiyeen in ay ku caawiyaan oo ahayd lacagtii ugu horeysay ee accountka lagu furay iyadoo kaashana ay noo soo dhiibeen oo aan maantana ku wareejin doono maxaa la yiraahdaa guddiga aan ku wareejin doono haddii alla idmo lacagtaasoo markaa aan loogu talagalay in taakulayn lagu taakuleeyo shacbiga Soomaaliyeed qaybtii hore ee Malaysia ka timid sidoo kalena yabo baa bilaabmay waanay socotaa lacag adugu ilaa markaas maanta berito usniina lacag ilaa adugu ilaa $60,000 iyadana way geli doontaa wax maalin walbana waxba imanaya insha Allah tacaala oo markaa waxay noqonaysaa waana go-aan ay gaadheen xukuumad ahaan inay caawiyaan Soomaaliya sidoo kale waxaa hadda jiraale laga hadlaa ama maxaa la yiraahdaa ay ka hadleen iyagu jimcihii dhaweyd markii go-aan golo wasiir markay gaadheen oo ahayd in Soomaaliya la caawiyo waxay go-aan ku gaadheen in la sameeyo maxaa la yiraahdaa waxay go-aan ku gaadheen inay wafdi hordhaca soo diraan oo qiimeynaya oo eegaya sidii wax loogu qaban lahaa wafdigaas wuxuu ka koobnaan doonaa 17 qof oo weliba ciidamada militariga ah oo iyagu ka socda dhinaca caafimaadka oo ay doonayaan inay ka shaqeeyaan isbitaalada Soomaaliya waxaa kale la socda iyagana 10 qof oo amnigooga ilaaliya maadaama sanadkii 2011 qof lagaga dilay iyagoo aan ahayn ayay doonayaan inay xoojiyaan amnigooga xoojiyaan laakiin waxay weydiisanayaan dowladda Soomaaliya in iyagu ka caawiso dhinaca amniga oo ay iyagu marti u noqdaan Soomaaliya haddii alla idmo marka taasna waa bilow باذن الله تعالى ان شاء الله تعالى waxaan isku dayayaan inay isku xidhaan waxay ku leeyihiin diyaaradahooda jooga xaggan Riyaad jooga iyo ciidankooda Riyaad jooga inay daadgureynta taakuleynta ay ka qayb qaataan ayay doonayaan haddii alla idmo dalalkii kale shirkii kasoo qayb galay kasoo ku Malaysia dad fursad u heshay kala hadasho xaaladda abaaraha iyo inay Soomaaliya caawiyaan dowladda Indonesia kamid ahay dowladda Indonesia oo madaxweyne ku-xigeenkan saragnay isagana arrinta abaaraha kala hadlay waxaanu isaguna ballan qaaday in ay Indonesia iyaduna qaybteeda qaadan doonto waxaana moodaa Malaysia iyo Indonesia iyo Brunei oo dhinacaas Aasiyaanka ah dowladaha Aasiya ku jira iyo dowladaha Sacuudiga iyo Qatar iyo Bahrain intaba 6 dowladood iyo dowladaha kaleba ay bilaabaan sidii ay barnaamijkan uga qayb qaadan lahayn waliba si xoog leh uga qayb qaadan lahayn haddii alla idmo bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waxaan aad ugu faraxsanahay caawa inaan guddiga aan ku wareejiyo lacag amaanaa oo 100,000 oo dowladda Malaysia ay soo dhiibtay oo kaash ahaan igu soo dhiibtay
oo tana ayaan rabaa inaan ku wareejiyo maxaa la yidhaahdaa sheekh nuur baaruud oo isagu u qaabilsan xagga wacyigelinta iyo xisaabaadka markaan ku wareejiyo insha allahu tacaala sheekh lacagtii wataas ra-iisul wasaare ku-xigeenka sayid maxamed cumar carte safarkiisii barakeysnaa oo waxyaalo badan uu ku soo qabtay khayr badan aan ka filayno intana hordhacana waan ka guddoonay lacagtiina wataas cadadkeeduna waxaa weeyaan 100,000 oo dollar wey